بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. بسم الله إلهي مقعيس أيان كبلا بايا سورة الله سوء الرحمن نحريست قد نحريست الله سوء الرحيم نحريست خاصا نحريست. الأرأيت كورا الذي كي يكذب بيننا بالدين أبا القدك بيننا فذلك كاس الذي كيواي يدع اليتيم أغونك حقي سكريحايا ولا يحض أن كبورينين على طعام المسكين مسكينك إن عنطل سينا أن كبورينين. فويل هلاك للمصلين كوا دكذا يؤسقنا الذين هم كواسوا عن صلاتهم صلاة حق ساهون هلمامسا الذين هم كواسوا يراؤون ضدك استتصايا ويمنعون ديدايا أو ريبايا الماعون ماعون تديدايا. سورة الماعون سورة المقعد وحال لها سورة الماعون. سورة اليتيم نوال لها سورة الدين نوال لها سورة التكذيب نوال لها. أرأيت الذين نوال لها مقعيل بدن أي لها سورة دان آيات كيدو واتضبع آيات كلمات كيدونا قياسهان وعلى 24 كلمة تقريبا. سورة مكية وهي مكة أي كسو دكتي ترتيب كذا قرآن كمركي كر لغا صوت تريانا وحيث جلسا نمبر كبقول تضبع. سورة وحديث أو صوم نزول كذا شيء أنا ما أركن. سورة وحن كفايدة سننا ولا ليال إن إحسان الله سمايو أغونك oo xaqiisa iyo xoolihiisa aan laga taabanin oo loo samafalo. nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ana wakafilul yatim fil jannati hakada as-sababata wal wusta. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri aniga iyo midka kafaala qaada agoonka jannada dhaxdeeda sidaasan ku nahay. nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu taagay lama farood farta loo yaqaano mudursatada iyo farta ku xigta oo loo yaqaano fardhaxaadka ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam isku qabtay markaasuu wuxuu yiri saasaan jannada ku nahay. marka walaalayaal lamadaas farood meeqa isku jiraan soo wax yar isku ma jiraan wax yar isku jiraan. marka agoonka xoolihiis in laga qaato iska dhaafe in asiga wax la tara ayaa walaalayaal ma taqaanaa waajiba oo loo naxariisto. suuradan waxaa kaloon ka faa'iideysanaynaa maskiinka in cunto la siiyo oo weliba xatay dadka inay cunto siiyaan lagu booriyo oo dadka lagala hadlo. maskiinkana nabi sallallahu alayhi wasallam waa ayaa noo sheegay maskiinka ma ahan midka irdaha qaraacayo ma taqaanaa wax yar dilisi iska joogayo laakiin maskiinka waxaa waaye midka ceebihiisa qarsanayo oo iska aamusan oo la fahmaynin oo xishoonayo. marka midka hore xatay maskiin waaye laakiin kaasa sii fadli badan. marka maskiinka in cunto la siiyo naftigiisan ayaa waajiba dadkana loo sheego in cunto siiyaan oo loo naxariisto. suuradan waxaan ka faa'iideysanaynaa walaalayaal oo kale salaada in waqtigeeda lagu ilaaliyo. fawaylu lilmusalliin salaad in waqtigeeda la dhaafsiinin oo waqtigeeda salaada lagu ilaaliyo shanta salaado waajibka khaasatan. in salaada lagu khushuuco iyo in la ilaaliyo salaada arkaanteeda iyo shuruudeeda iyo waajibaadkeeda in la ilaaliyo. waxaan kaloo ka faa'iideysanaynaa salaada markaad dukanayso in loo dukado qaab ikhlaas ah ilaahay dartiis in loo dukado salaada oo aan ma taqaanaa weji kale loo dukanin. aladiina hum yuraa'uun. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت كورا ما أركتنا والله أرأيت ما أركتي الذي كي يكذب بيننا بالدين بالقدك بيننا
fadaalika kaas alladii kii waa yaducu lyatiima agoonka xaqiisa ka reexaya oo xaqiisa mataqaana u dida walaa yaxudu aan ku boorinayna calaa طacaami lmiskiini miskiinka in cunto la siiyo haddaa cunto siisa xatee dadka inaa kala hadasha la rabaa adigina aad siiso dadkan aad kala hadasho miskiinka haloo kaalmay tiraad laakiin maanta waxaa waaye kan miskiinka iyo midka miskiinka maanta waxaa waaye maba lay kala yaqaanbo waxaa arkaysaa dad badan oo masaakiin aheenoo mataqaanaa bal ku shaqaysanayo oo shaqo oo mataqaana ka dhigtabo wadiifo iyo shaqo ka dhigta arkaysaa laakiin adiga ajir waa lagaa siinaya iska sii adiga qalbigooda ilaahay ba u taallaa fawaylun halaag lilmusalliina kuwa dukado u sugnaaday alladiina kuwaasoo hum ayagu can salaatihim salaadooda xaggooda saahuuna hilmaamsan sahwiga la sheegaya ma aha dee sahwiga oo sujuudda ama rukuucda amba rakaco aad ka tagta maaha taas nabi maxamed sal slam ay ka dhacday sahwigan waxaa waaye salaada markii qofka dukanayo waqtigeeda kuma dukanayo shuruuddeeda ma ilaalinayo arkaanteeda ma ilaalinayo sujuudda ma dhamaystirayo rukuuc ma dhamaystirayo kuma qushuucayo waxaanaas laga wada hilmaamkii oo qofka uu salaada wax ka hilmaamo maaha taas nabi maxamed ka dhacay sal taas waxaa waaye sujuud sahwi yaa lagu kabaaya wixii aad ka tagtana waa la imaanaysaa alladiina kuwaasoo hum ayagu yuraa'uuna dadka istutusaaya oo wayamnacuuna diidaayo almaacuuna maacuunta diidaayo maacuuntana sida waxaa ka mid a markii baadiyaha la joogo mataqaanaa misaarta iyo dherega iyo wadaanta iyo qaandada iyo dabka iyo biyaha in waxaas in laisku diido ma fiicno in waxaas waa waxalaha yar oo dariska way kala qaataan dee in la siiya ayaa mataqaanaa fiican waxaa kaloo lagu fasiraa zakada iyo wax kastoo samafalaas oo gelaayo hada wabillahi tawfiiq. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.